dowladda Soomaaliya galinkii dambe ee maanta waxay ciidamo ku daadisay taalada daljirka Dahsoon oo loo balansanaa in bari ay ku qabsadaan soo baxyo nabadeed golaha midowga musharaxiinta iyo taageerayaashooda. wasaaradda amniga ayaa hadashay xaalad culus ay magaalada Muqdisho mar kale fooda saartay. wararkii ugu dambeeyay ayaan ku eegi doonaa. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambaleelka furo, لايكتا شيرتا iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtan hanaga ilaabin mar walba waan kaga mahadcelinayna sida joogtada ah ee aad inoogu soo gudbinayso fikradaada saliimka ah muuqaaladeena aad u daawanayso. waa habeenimo jimco ay sii baxayso sabti soo galayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 5 bisha Maarso sanadka 2021 galinkii dambe ee maanta markii ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya lagu arkay agagaarka xerada ama taalada daljirka Dahsoon oo u muuqata in xero ay u noqotay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwada waran ayaa dhawaanahan ku sugnaa laakiin ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ayaa lagu soo daadiyay halkaasi iyadoo ciidamadaas ay shaki badan ku abuureen dadka deegaanka. waxay diidayeen isu socodka gaadiidka dadweynaha, sidoo kale dadka halkaas lugeynaya ee ay ka shakiyaan waxay weydiinayeen su'aalo. sidoo kalena baabuurta madaxda ay wataan ayaa si dhib ah mararka qaar ku marayay wadada. waxaa la sheegay in wadooyinka soo gala taalada daljirka Dahsoon ciidamadan ay isku gadaameen isla markaana feejignaan gaar ah ay ka muuqatay. waxaa sidoo kale la sheegay ciidamadan in qorshaha meesha loo keenay ay tahay inay ka hortagaan haddii isku day ay sameeyaan golaha midowga musharaxiinta oo ay ku doonayeen inay isugu yimaadaan taalada daljirka Dahsoon. wasiir Xasan Xundubey oo uu garab taagnaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Cali Yare ayaa iyaguna shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. waxay sheegeen in gaar ahaan wasiir Xundubey oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir qaybta ammaanka walaac gaar ah ay ka muujiyeen xaaladda la xiriirta banaanbax aysan dowladda kaalin weyn ku lahayn in Muqdisho uu ka dhaco. waxay soo dhaweeyeen in golaha midowga musharaxiinta ay qaataan tallaabo lagu badbaadinayo naf Soomaaliyeed. isla markaana waxaa wasiir Xundubey uu sheegay inuu soo dhaweynayo in golaha midowga musharaxiinta ay hoosta ka xariiqaan inay dib u dhigaan dibadbaxooda. wuxuu ugu celceliyay in ay diyaar u tahay dowladda in dibadbax ay qabsan karaan golaha midowga musharaxiinta sidii horey loogu heshiiyay, laakiin ay doonayaan ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya in ay wax ku yeelato. waxaana uu sheegay haddii halkaas dhibaato ay ka dhacdo in mas'uuliyadda ay ku soo laabanayso dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga ee aysan ku laaban dooneen dadka banaanbaxa qaban qaabinaya. wasiir Xundubey sidoo kale wuxuu halkaas shaaca ka qaaday in aysan jirin baahi iminka mudaharaad loo qabto laakiin markii ay ku dhageen golaha midowga musharaxiinta loo ogolaaday waxa ay u soo jeediyeen sida uu sheegay in stadium Konis ama Engineer Riso lagu qabto halkaas oo ammaankeeda la sugi karo. golaha midowga musharaxiinta waxa uu ku eedeeyay inay diideen iyadoo loo ogolaaday taalada daljirka Dahsoon ayuu haddana muujiyay in ammaanka uu noqon karo mid aad iyo aad u halis badan maxaa yeelay 6 wado ayaa soo gashay ayuu yiri oo 2 ka mid ah jidcadayaal ay yihiin taasi oo uu sheegay in wax badan oo qaribaad ah oo dhinaca ammaanka ay geysan karto. xaaladda magaalada Muqdisho haddii sidaa ay gasho waxaa sii cakirnaanaysa in ammaanka Muqdisho sidan uu sii ahaado iyadoona dadka qaar ee ku nool goobaha fagaaraha ah ee banaanbaxyada ay ka dhici karaan sida taalada daljirka Dahsoon ay durbadiiba si dareen leh ay u eegayaan xaaladda ku soo korortay siyaasadda dalka iyadoo arintan ay la xiriirto shirkii xalay fashilmay ee hotelka Dikale ka dhacay ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba midowga musharaxiinta ka oo qodobo la soo saaray la isku fahmi waayay qaarkood isla markaana qodobadaas ay qayb ka ahaayeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awoodiisa uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si uusan faraha ula soo galin arrimaha xasaasiga ah ee amniga iyo doorashada la xiriira. sidoo kale ciidamada in ay ka baxaan dhinaca siyaasadda ayaa ku xusnaa qoraaladii la isku fahmi waayay inkastoo dhinacba dhinaca kale eedeen uu u soo jeediyay. xaaladda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho haddii intaasi aynu kaga gudubno dadka Soomaaliyeed waxay xaq noogu leeyihiin inay ogaadaan waxa jira iyo xogta jirta inay la socdaan ay xaq noogu leeyihiin. sida awgeed wax kasta oo soo kordha oo xog ah waa in lala wadaagaa oo la gaarsiiyaa.
waxaad ogtihiin berri inay ballantu ahayd inay murashaxiintu ay dhaheen mudaaharaadaan qabanaynaa dowladdu ayadoo tixgelinaysa caafimaadka iyo in amnigu dhibaato badan ka imaan karto markii horeba ra'yigeedu wuxuu ahaa inaan mudaaharaad loo baahnayn xoogga iyo xoolaha aan mudaaharaad gelinaynani loo baahan yahay inaan gelinno oksijiin inaan ku soo gadanno oksijiin inaan ku gadanno aan dadkeenna ku daawaysanno inaan gacmaha isqabsanno inaan khatarta caafimaad iyo midda amniga hor tagno sidaasay ahayd laakiin ayadoo sidaasa mar haddii walaalaheen ku adkaysteen in la qabto inay laga maarmaan u tahay dowladdu waa ogolaatay waxaa ku xigtay goobtee lagu qabanaa goobtiina hal goobay sheegteen oo adarjir ka dahsoon waxaa dowladdu soo jeedisay war goobo kaloo ammaan ah oo lagu qaban karo oo ammaanku ka fiican yahay oo la sugi karo oo caafimaadaan ka fiican ayaa jiree aan ku qabanno daljirku waa goob ay ku furan tahay horta 9 jid oo 6 ka mid ah laami tahay 3 ka mid ah jid caddayaal tahay kuna yaaliin checkpointiyo muhiim ah in ciidamo aan is aqoon shaqo isku lahayn iyo dad aan la aqoon la isugu keena waa adag tahay sidaasaan inala ahayd waa diideen waa ku adkaysteen waxay dhaheen waa inaan daljirka ku qabsannaa dowladdu waa ogolaatay haddana inay ku qabsadaan waa loo ogolaaday ayadoo la tixgelinayo in waddanka nabaddiisa laga shaqeeyo in bulshada aan la qaybin in la isku xiraado ayadoo la tixgelinayo haddana waa loo ogolaaday qodobkii saddexaad oo farsamadaa loo gudbay sidee loo qabanaa waxay keentay in loo saaro saraakiil labada dhinac ah oo farsamo yaqaano ah oo iska wareystaan sidee loo qaban karaa dowladdu sidee ammaanka ku sugi kartaa see loo ilaaliyaa caafimaadka taas markay timid waxay ku adkaysteen haddana inay yidhaahdeen goobta ammaankeeda waa inaan annagu la wareegno goobta ammaankeeda annagaa la wareegayna 300 oo isku weera annagaa la wareegayna ammaankeeda annagaa sii qabsanayna galabta jimcaha annagaaba meesha la wareegayna taasina waa ku adkaatay dowladdu sababtoo ah dowladdu ayadaa mas'uul ka ah hadhow wix meesha ka dhacaan meel aysan ammaankeeda ayadu gacanta ku hayn suuragal maaha in hadhow wax laga weydiiyo sidaas darteed farsamadaas waa la isku khilaafay wadahadalkii oo weli socda oon lagu heshiin walaalaheen runtii maanta waxay ku dhawaaqeen inay iyagoo tixgelinaya duruufo jira ama caafimaad ama wax kasta inay mudaaharaadka joojiyeen saasay ku dhawaaqeen aad iyo aadaan u soo dhowaynaynaa inay garteen in dadka Soomaaliyeed maanta waxyaabo ka muhiimsan oo mudaaharaad ka muhiimsan oo arrimo caafimaad ama arrimo amniga inay jiraan hadday garteen dowladdu aad iyo aad u soo dhawaynaysaa waana ku bogaadinaynaa waana wax aad wanaagsan qodobka kale mudaaharaad kasta oo la qabanayo dowladdu hore u sheegtay inaan waxba ka qabin haddana waxba kama qabto in la qabto laakiin mas'uuliyadda ammaanka goobta lagu qabanayo lama qaybsan karo ciidamo aan isgaranayn meel ka yimid la kala garanayn hadday doonaan qaarkood la soo dhex geli karo dowladdu meelaysan ammaankeeda ayadu ogeyn mudaaharaad ka dhacaya ma sheegi karto waayo mudaaharaadku ma aha wax tirsan oo qof wato boorso ku wato maaha bulsho la isugu yeerayo waayo cid rabtaa soo raaci karta cid kasta soo dhex geli karta ma kontaroolna hadhowna mas'uuliyaddu waxay ku soo wareegaysaa dowladda ee dadka mudaaharaadka qabanaya ma qaadayaan sidaas darteed waxaan ku celcelinaynaa mudaaharaad aan amnigeeda annaan sugayn oo dadkii qabanaya ay leeyihiin annagaa ammaanka la wareegayna goobta iyo ammaankeeda ma aqbali karno waayo dadku jidadkay ku imaanayaan meesha ay ka imaanayaan meel kasta waxa waaye mas'uuliyad annagana saaran waayo gobolka banaadir oo aan marti u nahay oo guddoonkiisa qaar igala joogaan culays badan oo la sheegi karin ay ku qabeen arrintan ha yeeshee ayadoo sidaasa wasaaradda amnigu mar walbaba waxay wada hadal kala gelaysa guddoonka gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa si loo ilaaliyo wadajirka ummadda oo bulshada loo qaybin oo dadka mucaarad iyo muxaafad danahooda leesu geliya inta isgeli karta in arrintaas la fasaxo haddana mar kalean ku celinaynaa waa ku bogaadinaynaa murashaxiinta hadalka ka soo yeeray inay bulshada u dhimriyaan caafimaadkooda oo ka fikiraya waxaan haddana mar dib u ballan qaadaynaa mudaaharaad haddii la qabanayo dowladdu waxba kama qabto laakiin farsamada iyo goobta iyo ammaanka iyo qaabka iyo waxaasoo dhan tale lagu midaysan yahay u baahan tahay mas'uuliyaddana dowladdaa yeelanaysa ammaanka aad iyo aad u mahadsantihiin